السلام الله عليكم meel kastoo dunida ka joogtaan magacaygu waa Idris Xasan Maxamed page-ka daawanisna waa Idris Xasan page muuqaalka toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa nin waalan oo ag fadhiista meel maqaayad ah hase haatee gabadha maqaayadu ay aad u neceb tahay muuqaalkan intaananu bilaabin fadlan like saar page-keena mahadsanid aan bilowna muuqaalka wuxuu ka tarjumayaa ninkan xanuunsan ee meesha jooga hase haatee maqaayad ayaa u dhow ay gabadh haysato gabadha iskale mulkiilaha ka ah maqaayadda waa gabadhan ha ahaatee ninkan waxaa aad u haysa gaajo aad u daran iyadoo laakiin kamaba qasnoo macaamiisheeda ayay qancinaysaa oo ay cunto u soo dhigdhigaysaa gabadh ayaa iyadana la shaqaynaysaa oo weelka u maydhaysaa ninkii wuu adkaysan kari waayey baahida meesha ku haysaa kadib wuu soo kacay oo gabadhii weelka dhaqaysa ayuu ku dhahay walaal cunto isi kadib waxay ku dhahday anigu kuuma awoodo inaan cunto ku siiyo ee waxaa ku siin karaysa gabadha iga sarraysa ama sheekada kadib nimankani hawshooda ayay iska wataan waxaana leedahay yaro suban aan kuu soo weydiiyo gabadha meesha iskale haddii ay cunto ku siinayso wayna weydiiso oo waxay dhahdeen ninkan xanuunsan ayaan rabaa inaan wax siiyo ee waxma awooda aad siiso kadib ayay leedahay ma ninkan xanuunsan baad doonaysaa inuu maqaayadeyda aad raashin ka siiso kadib gabadhii way la yaabaysaa oo waxay leedahay maantoolen ayuu leeyahay waxay sii markaabay leedahay raacday oo waxaad ku dhahdaa waxba kuma siinin ee meesha iskaga teg runtii gabadhan naxariis ma laha oo waxa ay leedahay meexaaradan waaban yaabanahayba dad waalwaalan unbaa ilaahay igu salliday oo sidaa markastoo igu imaanaya waxna i weydiisanaya oo odhanaya waxay gabadhii shaqaalahayd waxay ku dhahday runtii ma awoodo inaan wax ku siiyo oo gabadha meesha iskale ayaa dhahday waxba ha siinin kadib dadkii ayaa ku leh naamaad sii sidaa bal wax yar markaabay leedahay maanta haddaan wax siiyo beritoole maaha mid joogsanaya ee beritoolena meesha unbuu kasii wadaya ninkan xanuunsan nimankii ay la dagaalsantahay way leedahay wax siiya ayaad leedihin laakiin ma ogtahay maanta haddaan wax siiyo beritoolena inuu bartan u imanayo meheradani maaha meherad loo furay dadka waalwaalan ee waa meherad loo furay dadka iska caadiga ah ee idinkoo kale ah ma ahana meheradani meherad aan dadka waalwaalan wax ku siin karayo kadib waxa ay leedahay bal maanta haddaan siiyo oon wanaag u sameeyo beritoolena wuu imaanayaa mana awoodo inaan wax u sameeyo markaasuu mar kastaba ku odhanayaasaa isug anaa aqaana ninkan shaqadiisa waryaa ma tegaysaa mise ma tegaysid horado iskaga tag waxba kuma siinayo meheradda anaa ii dhaaf meheradayda kadib wasaq ayay ku shubaysaa oo waxay leedahay meesha iiga teg runtii ninkan waa nin xanuunsan wax uu warka hayana ma laha hase ahaatee naxariistu waxay ku jirtaa qofka xanuunsan iyo qofka taagta daran inaad caawiso maadaama aad meherad haysato kadib ninkii wuu iskaga tegayaa meeshii maalin isaga oo qashin urursanaya oo meeshii iska jooga ayaa waxaa soo maraysaa gabadhii meesha ku diidaysay ama cuntada u diidaysay kadib niman meesha jooga oo tuuga ayaa gabadhii waddada ay maraysay u istaagaya kadibna waxay ku odhanayaan joogso dhig waxaad haysid kadib labadii nin ayaa iskugu tegaya gabadhii oo yaaban oo le maxaan haystaa waxa ma haysto moobilka dhig kadib ninkii waalnaa ay u diidaysa cuntada ayaa maqlaya iyadoo aamus lagu leeyahay waxaad haysidnakeen moobilkii ayay ka qaateen boorsadii iyagoo baarbaaraya nasiib wanaag ninkii waalnaa ay cuntada u diidaysay ayaa caawiyey oo nimankii ka celiyey markuu nimankii ka celiyey kadib ayay ku waalatay aaway moobilkaygii runtii moobilkii ayuu uga soo qaaday nimankii oo waxa uu ku dhahay waa kan moobilkii ee qaado gabadhii runtii way fajacday oo waxay dhahday ninkan asxaankan kuu samaynayaa miyuuna ahayn ninkii aad markii sidaa lahayd ama aad eryeysay oo aad cuntada u jeedisay runtii xasuus yar ayay gashay oo waxay soo xasuusatay biyihii uskaga lahaa ay ku shubaysay ku lahayd orodoo naga teg waxba ku siin maynee runtii ninkii waalnaa ee ay biyaha ku shubaysay ayaa maantana noqday mid uu hiiliyey oo nimankii ka daciyey runtii gabadhii ama kaag iyo yaab ayay ku noqotay oo waxay ka qoomamaysay ninkii sidaa u gelaysay oo maanta isxaan u sameeyey oo siiyey moobilkiina uga soo qaaday nimankii caawimaad iyo garabna siiyey runtii waxaa wanaagsan qofka inaad caawisid mar kastaba hadduu xanuunsan yahay iyo hadduu caafimaad qabo muuqaalkan inta ayaan kusoo gabagabayn doonaa fadlan muuqaalkani hadduu ku cajabiyey
sheer dheh oo asxaabtaada la wadaag mahadsanid.